sharafta leh waa Faris Calaataas oo marka leedina kusoo dhawaada cashirkeena maanta oo aan uga hadli doono wareegga dhiigga ee uurjiifta afka qalaad lagu yiraahdo fetal circulation. waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo muhiim ah aan ka hadlo si aan wax badan uga faahno wareegga dhiigga ee uurjiifka. wareegga dhiigga ee uurjiifta ayaa waxay ka gudbaan mareeno yaryar oo muhiim u ah si ay ugu gudbaan qaybo badan oo jirka ka mid ah. haddaan idin magacaabo mareenada waxaa ugu horeeya foramen ovale. foramen ovale kan xiga waa ductus arteriosus. ductus arteriosus kan saddexaad waa ductus venosum. ductus venosum sidaad ujeedaan waa foramen ovale. kan waa foramen ovale yani foramen ovale wuxuu u dhexeeyaa right atriumka iyo left atriumka. duleelkan wuxuu naga saacidaa in uu dhiig oxygen leh in uu kasoo qaado right atriumka wuxuu keenayaa left atriumka ayuu keenayaa. sidoo kale duleelkan asigani waa ductus arteriosus. this the ductus arteriosus. duleelkani waa ductus arteriosus. ductus arteriosus wuxuu u dhexeeyaa pulmonary artery iyo aorta ayuu u dhexeeyaa. wuxuu naga saacidaa in uu dhiig oxygen leh in uu kasoo qaado pulmonary artery uu keeno aorta uu keeno. kan saddexaad ductus venosum. ductus venosum this is the ductus venosum. ductus venosum waa wareega. ductus venosum waxaa soo gudbaa dhiig oxygen leh kaasoo ka imaanayo balasantaa ka imaanayo asigoo usoo marayo umbilical veinka ayuu usoo maraya. sida sawirkan idin kaga muuqdo waxaad aragtaan dhowr organ oo waaweyn. haddaan ku bilaabno kan waa lungiski. organkan waa lungiski wa. sidoo kale waxaan haysanaa liver. organkan waa liverki wa. organkan waa kan waa placenta. the placenta. xarigan cas waa umbilical veinki wa. xarigan cas waa umbilical veinki wa. sidoo kale blue colorkan waa umbilical artery. umbilical artery. meeshan waa umbilical cord. umbilical cords. waxaan kaloo haysanaa meeshan aad ujeedid waa wadnihii. yani waxaan rabaa inaad sawiro wadnihii oo si weyn aad u arki kartaan. dabcan hadda si wacan idinkuga muuqdo sawirkan. marka waxaan rabaa in aan sawiro wadnihii oo yani si waadix aad u arki kartaan. sawirkan aan hadda sawirayo waa wadnihii. diaphragmkan waa wadnihii oo si weyn aad u arki kartaan. marka qaybta kore ee wadnaha waxaan ku haysanaa meeshan waa superior vena cava. aan soo gaabiyo waa superior vena cava. qaybta hoosena waxaan ku haysanaa inferior vena cava. waxaan kaloo haysanaa meeshan waa aortic oo aortic. meeshan waa arch of aortic. meeshan waa arch of aortic.
sidaan la soconaba arch of aortic wuxuu leeyahay 3 branch ayuu leeyahay. kan ugu horeeya waa brachiocephalic artery and left common carotid artery and left subclavian artery. meeshan waxaa kaloo ku haysanaa meeshan waa pulmonary artery. sidaan la soconaba wadnaha wuxuu leeyahay 4 jambar ayuu leeyahay. waxaan rabaa inaan sawiro jambarada uu leeyahay wadnaha. meesha waxaa ku haysanaa marka wadnaha wuxuu leeyahay 4 jambar ayuu leeyahay. waxa ugu horeeyo right atriumka. qeybaha hore waa atriumka, right atrium, intani waa left atrium. qeybaha hoosena waxaa ku haysanaa the right ventricle, dhinacani waa left ventricle. waxaa kaloo haysanaa inta waxaa ku haysanaa haddii hore waxaa usoo sheegnay 3 mareeno yaryar, ductus arteriosus. meeshan waa ductus arteriosus. sidaa hore usoo sheegnay ductus arteriosus wuxuu u dhexeeyaa pulmonary artery iyo aorta ayuu u dhexeeyaa. waxaa kaloo haysanaa foramen ovale. this is the foramen ovale. asigana foramen ovale waxaa soo sheegnay inuu u dhexeeyo right atriumka iyo left atriumka inuu u dhexeeyo. wuxuu naga saacidaa dhiig oxygen leh inuu kasoo qaado right atriumka uu keeno left atriumka ayuu naga saacidaa. weli waxaa kaloo meeshan ku haysanaa septum septum primum iyo septum septum secundum, this is septum secundum iyo septum primum. waxaa kaloo meeshan ku haysanaa arch of aortic. sidaan hore idinkugu soo sheegaba arch of aortic wuxuu leeyahay 3 branch ayuu leeyahay. arch of aortic, brachiocephalic artery, left common carotid artery and left subclavian artery. marka aan ku bilaabo placenta. placenta waa organ aad iyo aad u muhiimsan. waxay naga saacidaa xilliga maamada ee uurka ee leedahay ama xilliga uurka jirka ayay saacidaa. waxay ka saacidaa dhowr shaqo ayay qabataa. shaqooyin orgamo fara badan aan qaba lahayn ayay qabataa. waxa ugu horeeya placenta waxay u shaqeysaa as respiratory function ayay u shaqeysaa. sidaa la soconaba uurjiifta oxygenka kama helaan langiskooda, waxay ka helaan placenta ayay ka helaan. sidaan idinkugu sheegaba uurjiifta kama helaan oxygen langiskooda, waxay ka helaan placenta ayay ka helaan. sidaa darteeda placenta waxay u shaqeysaa as respiratory function ayay u shaqeysaa. waxay kaloo qabataa as nutritive function. waxay nafaqeysaa ama energy ay siisaa uurjiifta energy ay siisaa. waxay kaloo u shaqeysaa as excretory system, excretory function ayay qabataa. waxay soo saartaa ama ay dib u metabolic function ayay soo saartaa. waxaa kamid uric acid iyo urea iyo uric acid, waxyaalahaas ayaa kamid ayay soo saaraysaa. sidoo kale placenta waxay u shaqeysaa as secretory function. yani placenta waxay soo deysaa progesterone iyo estrogen ayay soo deysaa. inta badan progesteroneka waxaa lasoo deeyaa bisha afraad dhamaadkeeda ayaa lasoo deeyaa. marka estrogen iyo progesterone waxay naga saacideysaa in uteruska oo contraction yani contraction inuusan sameyn ayay ka saacideysaa. ilaa iyo waqtigiisa inta laga gaarayo wax contraction ma sameynaya, ayagaan ka saacidaya. marka waxay kaloo u shaqeysaa as protective. waxay ka saacidaa microorganism fara badan oo usoo gudbaya ayaa jira. waxay ka ilaalisaa inay usoo gudbayaan microorganismka uurjiifka. waxaa jira organismo qaar oo soo gudbayaan. laba way noqon karaan, virus wuu noqon karaa, bacteria wuu noqon karaa. viruska waxaa kamid viruska waxaa kamid German measles oo loo yaqaano Rubella iyo AIDS. intaba way soo gudbi karaan placenta barrier way soo gudbi karaan. waxay kale placenta naga saacidaa in ay naga ilaaliso hooyada dhiigeeda iyo uurjiifka dhiigga labadaba inay isku darsamaan ayay naga saacideysaa. yani placenta waxay ku dhegan tahay gidaarka ama derbiga oo uteruska ayay ku dhegan tahay inta badan. waxa lagu cabiraa placenta inta badan waxaa lagu cabiraa 22
32 centimeter 32 centimeter ayaa lagu cabira oo 9 oo 9 inch ayaa lagu cabiraa marka waxaa kaloo jiro diameter marka la fiirinayo xaroorka waa 7 inch waaye marka fiirinayno diameter marka upper surface of the placenta waa smooth waaye waa wax siman qaybta hoosena waa rough waaye upper surface the upper surface waa smooth halka oo qaybta hoosena ay tahay waa rough waaye marka waxaa lagu qiyaasaa culeyskeedii waa 500 gram ayaa lagu qiyaasaa inta badan gram weight ayaa lagu qiyaasaa marka waxaa lagu qiyaasaa 500 gram oo weightkii marka placenta wax never cells ma lahan yani inta badan 568.25 mm oo dhiig ah ayaa uteruska ku bambigareeya marka waxaan rabaa inaan ka hadlo umbilical cordki yani umbilical cordki asiga waxaa lagu qiyaasaa 60 cm inta badan 60 cm ayaa lagu qiyaasaa ama 24 inch ayaa lagu qiyaasaa umbilical cordka wuxuu ka kooban yahay hal umbilical vein iyo 2 umbilical artery yani xarigan asig waa umbilical veinki waaye iyo wuxuu kaloo ka kooban yahay iyo umbilical artery ayuu ka kooban yahay sida la soconaba umbilical vein wuxuu dhiig oxygen leh oo kasoo qaadaa placenta wuxuu u geenayaa uurjiifta ayuu u geenayaa halka umbilical artery ay kasoo qaadaan dhiig aan oxygen lahayn ay fetus kasoo qaadayaan amba uurjiifka waxay keenayaan placenta ayay kusoo celinayaan placenta ayay kusoo celinayaan marka intaa kadib waxaan rabaa in aan ka hadlo wareega dhiigga ee uurjiifka sidoo buu u shaqeeyaa wareega dhiigga ee uurjiifka umbilical vein wuxuu soo qaadayaa dhiig oxygen leh kaasoo wuxuu kasoo qaadayaa placenta ayuu kasoo qaadayaa wuxuu keenayaa markuu uu soo qaado dhiigga oxygenka leh markuu soo qaado wuxuu keenayaa liverka gudihiisa markuu soo qaado placenta laga soo qaadaya dhiig oxygen leh waxaa kasoo qaadaya umbilical vein wuxuu keenayaa liverka gudihiisa oo ama ductus venosum liverka gudihiisa liverka wuxuu isku darayaa dhiig oxygen leh oo ka imaada umbilical veinki iyo xaddi yar dhiig oo oxygen aan lahayn oo ka imaaday inferior vena cava oo ka imaaday liverka gudihiisa ay isaga darsamayaan markay isku darsamaan inferior vena cava dhiigga markay iskugu darsamaan dhiigga wuu soo baxaya wuxuu imaanayaa way ka soo dhaqaaqayaan the right atrium ka imaanayaan the right atrium markay imaadaan dhiigga intiisa badan the right atrium markay imaadaan waxay isaga soo darsameen inferior vena cava inferior vena cava dhiigga wuu kasoo baxay right atrium ku imaanaya right atrium dhiigga intiisa badan wuxuu u gudbayaa lefty atrium ayuu u gudbayaa asigoo u marayo foramen ovale dhiiggas intiisa badan waxay u gudbayaan foramen ovale sababtee ayuu dhiigga inta badan ay ugu gudbayaan lefty atrium sida caadiyan anaga ognahayba dhiigga markuu imaado right atriumka wuxuu usoo gudbi jiray ventricle laakiin marka oo lagu jiro xilliga marxaladan marka lagu jiro dhiigga intiisa badan wuxuu usoo gudbayaa lefty atrium ayuu usoo gudbayaa asigoo usoo maraya foramen ovale why sabab uu usoo gudbayaa lefty atriumka maxaa yeelay dhiigga ka imaanaya inferior vena cava pressurekiisa zaa'id ah markuu imaado lefty atrium dhiigga wuu kasoo gudbayaa lefty atrium wuxuu imaanaya lefty ventricles ayuu imaanaya then dhiigga wuxuu aadaya arch of aortic oo aadaya marka wuxuu supply gareynaya ama nutrient brainka ama qeybaha sare qeybaha kore ee jirka ayuu supply gareynaya marka aan fiirino superior vena cava superior vena cava waxaa ka imaanayo dhiig oxygen aan lahayn waxay imaanayaan right atriumka iskugu darsamayaan dhiigga oxygenka aan lahayn oo ka imaaday superior vena cava iyo xaddig yara dhiigga meesha ku haray way isku darsamayaan markay isku darsamaan waxay imaanayaan ventricleska imaanayaan ventricles markay imaadaan way ka gudbayaan ventricle pulmonary area taga dhiigga markuu tago pulmonary area dhiigga intiisa badan wuxuu u gudbayaa
arch of aortic ayuu u gudbayaa asigoo usii marayo ductus arteriosus. arch of aortic u gudbayaa asigoo usii marayo ductus arteriosus. marka xad yar oo dhiiga ayaa lungs-ka galayo. lungs markay lungs galaan way kasoo gudbayaan, waxay imaanayaan left atrium-ka imaanaya. marka uu dhiigii imaado marka uu dhiigga uu soo galo markuu dhiigga uu kasoo gudbo pulmonary artery oo imaado aortic arch, wuu u gudbayaa descending aorta u gudbayaa, abdominal aorta u gudbayaa, haddana common iliac aorta usii gudbayaa, haddana umbilical artery kusoo maraya, umbilical artery. then marka wuxuu imaanayaa placenta ayuu imaanaya. processkii ayaa meesha ka bilaabanaya. markuu gastric change ka dhaco, haddana waxaa loo soo gudbinayaa umbilical artery, umbilical vein-ki ayaa loo soo gudbinayaa. aan ku celiyo hal mar. dhiig oxygen leh dhiig oxygen leh ama oxygenated blood ayaa laga soo qaadayaa placenta. waxaa kasoo qaadaya umbilical vein-ki ayaa kasoo qaadaya. umbilical vein-ki markuu kasoo qaado wuxuu keenayaa liverku keenayaa. marka liverka wuxuu isku darayaa xaddi badan oo dhiig oo oxygenated ah oo ka imaada umbilical vein iyo xoogaha dhiig oo ka imaaday qeybaha hoose ee jirki ayaa meesha iskaga darsamayaan. markay isku darsamaan kadib dhiigga way soo dhaqaaqayaan, waxay imaanayaan right atrium-ka ay imaanayaan. dhiigga intiisa badan wuxuu u gudbayaa left atrium-ka ayuu u gudbayaa asigoo usii maraya foramen ovale ayuu kasoo gudbaya. marka hadda dhiigga wuxuu joogaa atrium-ku joogaa. atrium-ku kasoo dhaqaaqaya wuxuu imaanayaa left ventricles ayuu imaanayaa. left ventricle markuu imaado dhiigga arch of aortic wuxuu gudbaya aorta u gudbaya. then wuxuu supply gareynayaa ama nutrition oo siinaya maskaxda iyo qeybaha sare ee jirka ayuu siinaya. marka superior vena cava aan fiirina asigana. superior vena cava waxaa ka imaanayo dhiig aan oxygen lahayn, wuxuu imaanaya right atrium-ka. right atrium-ku iskaga darsamayaan oxygenated blood iyo dhiig oxygen iskaga darsamayaan. markay isku darsamayaan waxay usoo gudbayaan right ventricles usii gudbayaan. right ventricle markay usii gudbayaan pulmonary artery usii gudbayaan. pulmonary artery xoogaa dhiig xad yar oo dhiig waxay galayaan lungs-ka galayaan, laakiin intiisa badan arch of aortic usoo gudbaya asigoo usii maraya ductus wuxuu usii maraya ductus arteriosus ayuu u maraya. then marka ductus arteriosus markuu maraa dhiig wuxuu imaanaya arch of aortic, wuu kasii gudbayaa descending aorta uu tagayaa. descending aorta markuu kasoo dhigto abdominal aortic, common iliac aorta, umbilical artery usii maraya. then wuxuu imaanayaa placenta. haddana gastric change ka dhacaya, processka meeshiis ka bilaabanayo. marka waxaan rabaa inaan ka hadlo isbedelka ku imaanaya marka uu canuga uu dhasho kadib. inuu dhashay canug, dabcan waxaa inoo dhashay canuga yaa noo dhashay. aan ka jarno umbilical cordkii aan ka jarno. waxaan rabaa inaan ka jaro umbilical aan ka jarno umbilical cordkii. markaan jarno kadib shaqadii inoo haysay placentaha meesha ayay ku idlaanaysaa. meesha ayay ku idlaanaysaa. marka waxaa jira mareenada yaryaraay oo dhiigga haddaa ka gudbi jiray way xirmayaan. foramen ovale wuxuu isku bedelayaa fosa. foramen ovale wuxuu isku bedelayaa fosa ovale. waxay ku qaadanaysaa hal sano ku qaadanaysaa in meeshii anatomical ahaan in meeshii baabaado. waxay ku qaadanaysaa hal sano ayay ku qaadanaysaa, laakiin functionally shaqada ay qabanaysa daqiiqado kadib markuu canuga dhashaba isbedelka meeshu ka imaanaya, laakiin shaqada way iska bedelaysaa. marka waxaa kaloo jira isbedelka labaad waa fosa ovale oo noqday foramen ovale. muxuu noqonayaa marka asigana ductus arteriosus. ductus arteriosus wuxuu noqonayaa ligamentum arteriosum.
ductus arteriosus wuxuu noqday ligamentous arterism. asigana waxay ku qaadanaysaa 2 ilaa 3 isbuuc ayay ku qaadanaysaa in yani as function ahaan in meeshii ay u shaqeyso, laakiin waxay ku qaadanaysaa in meeshii as anatomical waxay ku qaadanaysaa 2 ilaa 3 isbuuc in meeshii ay baaba'do ay ku qaadanaysaa, laakiin functionally 10 ilaa 96 saacadood kadib shaqadii meeshay iska bedelaysaa. marka waxaa jiro ductus arteriosus saddexaad, waa isbedelka saddexaad waa ductus arteriosus. wuxuu noqonayaa asagana wuxuu noqonayaa ligamentum venism ayuu noqonayaa. asagana wuxuu noqday ligamented venism. asi 7 days ayay ku qaadanaysaa ligamentum venism u noqday. waxaa kaloo isbedelayo afraad kan afraad isbedelka afraad imaanaya waxaa kamid ah umbilical vein wuxuu isku bedelayaa ligamentum curve. umbilical vein wuxuu isku bedelay ligamentum tail, halkuu umbilical area asagana isku bedelayo isbedelka shanaad umbilical area umbilical ligaments ayuu noqonayaa asagana umbilical ligaments ayuu noqonayaa. waxaa kaloo isbedelka number 6 waxaa kaloo isbedelayaa exchange of gas. wuxuu ka dhici jiray markii hore fetuska marxaladda fetuska markaa ku jirno wuxuu ka dhici jiray placenta ayuu ka dhici jiray, laakiin hadda wuxuu ka dhacayaa lungs ayuu ka dhacayaa. aan soo gaabiyo exchange of gas. marka hore placenta uu ka dhici jiray, laakiin hadda lungs ayuu ka dhacayaa. hore waxaa u aqoon jirnay marxaladda fetuska markaa ku jirnay artery in uu dhiig oxygen aan lahayn oo deoxygenated blood inuu kasoo qaado fetuska oo placenta uu kusoo celiyay, laakiin hadda waa cagsi, wuu ka duwan yahay. yani hadda waa cagsi waaye artery dhiig oxygen leh yani dhiig oxygen leh ayuu wadnahu kasoo qaadaya. halka asigani oo number 7 waa number 8 waxaa waaye isbedelka 8aad venus. yani veinka waxaa ku aqoon jirnay dhiig oxygen leh inuu kasoo qaado placenta uu fetus ka geeyo, laakiin hadda wuu ka duwan yahay. dhiig oxygen aan lahayn ayuu wadnaha uu geenayaa, halka non oxygenated blood ayuu wadnaha geenayaa. waxaa kaloo jiro waxaa kaloo isbedelayo markaan joognay marxaladda jiifka ama fetuska. marka hore waxaan badnaay right side pressurekiisa ayaa badnaa, laakiin hadda waxaa badan waa cagsi waaye. hadda waxaa badan pressureka oo dhinaca bidix ee wadnaha ayaa badan. maxaa yeelay pressureka hadduu bato wuxuu xirayaa valveskan ayuu xirayaa the formula ovala pressure asaan loo saaraa meesha saasuu ku xirmaya. maxaa kaloo jira markaan waxaa badan pressureka of the left side of heart ayaa badan. waxaa kaloo jira qaybta tabanaan yani metabolic functionka wuxuu ka dhici jiray marka hore moosan dhici jirin, laakiin hadda liverka ayuu ka dhacayaa. marka hore shaqada waxaa u qaban jirtay placenta ayaa u qaban jirtay. fetal metabolic ayaa ka dhacaya. waxaa kaloo jiro يعني pulmonary resistancy wuu yaraanaya. marka hore yani pulmonary resistancy wuu badnaay, lungiska wax blood moosan geli jirin, laakiin hadda pulmonary resistancy wuu yaraanaya. waxaa kaloo jiro isbedelka 12aad waxaa kaloo ziyaadaya marka canuga oo dhashay kadib pressure systemki yani pressure systemki wuu ziyaadaya halka marka hore oo yaraay.
marka meeshaan waxaan ka dhacday 12 isbedel ayaan ka dhacday. isbedelka ugu horeeya waxaa waaye foramen ovale wuxuu noqonayaa fossa ovale, and ductus arteriosa asigana wuxuu noqonayaa ligamentum arteriosum, and ductus venosum asiga wuxuu isku bedel ligamentum venosum isku bedel. umbilical vein ligamentum teres noqonaya, halka oo umbilical area umbilical ligaments uu noqonayo. isbedelka lixaad waxaa waaye exchange of gas. marka hore wuxuu ka dhici jiray placenta ayuu ka dhici jiray, laakiin hadda canugu markuu dhashay kadib wuxuu ka dhacayaa lungs ayuu ka dhacaya artery marka hore. yani artery marka hore markaan joogno marxaladan oo fetuska oxygenated oo dhiig aan oxygen lahayn ayuu kasoo qaadi jiray fetuska, wuxuu u keeni jiray placenta ayuu usoo celin jiray. laakiin hadda wuu ka duwan yahay, dhiig oxygen leh ayuu wadnaha kasoo qaadaya. okay, veinkani dhiig oxygen leh ayuu wuxuu kasoo qaadi jiray marka marxalada fetuskaan joogno placenta, wuxuu u keeni jiray fetuska ay u geeni jireen. laakiin hadda non oxygenated dhiig oxygen ayuu soo qaadaya. waxaa kaloo jira isbedelka lixaad pressure of the left side of the heart. yani marka hore right side of the heart pressurekiisa badnaa, laakiin hadda waxaa badanaya dhinaca bidix ee wadnaha pressurekiisa ayaa badanaya. waxaa kaloo jira ma dhici jirin fetal liver metabolic motion dhici jirin, liver metabolic motion ka dhici jirin, laakiin hadda wuu ka dhacaya liverka shaqadiisa dib u bilaabaya. pulmonary resistance wuu badnaa, laakiin hadda wuu yaraanaya ilaa wax dhiig lungs motion gali jirin. waxaa kaloo jira pressure systemki asigani marka hore wuu yaraa, laakiin hadda wuu badanaya. intaasaan kusoo gabagabeynaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi taala.